بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ maantiin buu kusoo dhawaada kulan kale iyo taxanaheeni buu wadaag kacdoonadii carabta ee 2010 dabayaaqadiisii ilaa 2011 horaantoodii ka aloosmay Tunis iyo Masar waxay astaan iyo fafaale u yihiin baraarug ka dhashay guud ahaan dawladaha muslimiinta gaar ahaan dalalka carabta kuwaas oo markaa ujeedadoodu ahayd sidii looga tuuri lahaa nidaamka kalitaliyayaasha ee tobannaankii sano ee u dambeeyay dawladaha carabta madaxa kaga fadhiyay haddaba sidee buu kacdoonku u dhashaa waa maxay xorriyadu door intee leeg buu ku leeyahay qofka aqoon-yahanka iyo dhalinta ilbaxnimooyinka diimuhu door intee leeg bay ku leeyihiin kacdoonada iyo ilbaxnimooyinka dunida ka dhasha waa dulucda iyo dooda uu kusoo gudbinayo qoraaga loo yaqaano Dr. Louis Safi buugga ugu magac daray xorriyada muwaadinimada iyo islaamka siyaasiga Dr. Louis Safi waa qoraa iyo mufakkir asalkiisu yahay Suuri laakiin ku dhaqan waxna ku bartay dalka Mareykanka wuxuu leeyahay buugaag kala duwan waxaanu aasaasay ka ahaa dadkii aasaasay oo kamid ahaa xarunta daraasaadka dimuqraadiyadda ee islaamka oo ku taala dalka Mareykanka wuxuu shahaadada sare ee PhD da ku diyaariyay culumta siyaasadda buuggan wuxuu qoray 2013 waxaanu ka kooban yahay 168 bog buuggan wuxuu ka kooban yahay 7 cutub oo markaa mawaadiicda ku saabsan xorriyada qofka muwaadinka ah kacdoonada doorka ay aqoon-yahanku ku leeyihiin iyo guud ahaan diintu doorka ay ku leedahay ilbaxnimooyinka uu ku soo bandhigayo waxyaalaha ugu xiisaha leh oo ka warramaya waxa kamid ah nidaamkii kalitaliska ahaa ee dalalka carabta iyo dawladihii markaa muslimka ahaa sidii uu ku dhashay ee uu ka warramayo wuxuu ka warramayaa nidaamkii qoyskii iyo qoys kali ah uu ugu talinayay markaa ummadda iyo sidii markaa ay uga gacan siiyeen nidaamka iyo kalitalintaas qaar kamida markaa wadaadadu oo u fatwoon jiray ilaalin jiray kana dhigi jiray markaasi in boqorradaasi iyo dadkaasi markaa u talinaya dadka muslimiinta ah iyo dawladaha carabtu ay yihiin markaa kuwa ka khaliifa ama ka wakiila nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo diintii uu waday wuxuu ka warramayaa wadaadadaasi in qayb ka ahaayeen fikirka baahay ee ah in qofka muwaadinka ah ee xorriyadiisa ka hadla qofka muwaadinka ah ee fikirkiisa cabira qofka muwaadinka ah cadaalad doona uu yahay fitno waana sababta ay u baahday buu leeyahay oraahda caan baxday ee nabi maxamed markaasi loo tiriyo ee tiraahda fitnadu way hurudaa qofka toosiyana ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo qoraagu wuxuu leeyahay fitnada huruda ee la sheegaya waxa kaliya ee lagu fasiray waxay ahayd qof muwaadin oo xorriyad iyo baahidiisii shakhsiga ahayd iyo dantiisa ka hadlay laakiin marnaba wadaadadaasi kumay fasirin kumanay sheegin qofka wax maamulaya ama xaakimka ah fitnada uu geysto dulmiga uu geysto dhaca uu keeno iyo boobka uu keeno marnaba looguma fasiri jirin wuxuu ka warramayaa oo ka sheekeynaya kacdoonadu sidee bay ku dhashaan kacdoonadu waxay ku dhashaan buu leeyahay oo keena wacyiga ummadda oo kobca marnaba kacdoon ma keeno ama dawlad daciiftay ama waxa weeyaan dawladda oo tahli weyda markaas inay dadka maamusho laakiin waxa kaliya kacdoonka keena waxa weeye ugu weyn waa wacyiga ummadda oo kobca waxaanu leeyahay markaa waxa qayb weyn ka qaadan kara si ummaddu ay xadaarada u dhaliso oo ilbaxnimooyin u yimaadaan in qofka aqoon-yahankii uu door weyn qaato oo ah in la kobciyo garaadka bulshada si markaa loo helo qof xora oo muwaadina oo cadaalad hela oo xor u noqdo markaa fikirkiisa oo xor u noqdo waxa weeye noloshiisa oo xor u noqdo ka qaybgalka siyaasaddiisa iyo cidda matalaysa wuxuu aad uga warramayaa oo uu ka sheekeynaya doorka uu qofka aqoon-yahanka ku leeyahay in la dhaliyo ilbaxnimooyinka wuxuu leeyahay qofka aqoon-yahanka doorka uu ku leeyahay waa inuu sameeyo siyaasad isbedel laakiin inuu siyaasi kala bedelan noqdo ma aha siyaasadda isbedel oo qaadanaysa buu leeyahay in muddo dheer waxa weeyaan laga shaqeeyo in la dhiso markaa ururo bulsheed oo iyagu markaa waxa weeyaan dadkii u kooxeeya fikir iyo aragti iyo baahi iyo dan isku mid oo midaynaysa inay noqoto buu leeyahay markaa qofka aqoon-yahanka ay noqdaan buu leeyahay kuwa kobcinaya wacyigii bulshada iyo garaadkoodii iyo garashadoodii marka dadka wacyigooda uu kobca markaa isbedelku uu saa ku dhalan karo oo aan markaa adoon u ahaan kali taliya kursiga ku fadhiya wuxuu ka warramayaa kacdoonadii dunida ka soo qabsoomay iyo inay sal u ahayd fikir iyo aragti diini ah wuxuu tusaale u soo qaadanaya labada kacdoon ama labada ilbaxnimo ee waaweyn ee dunida saameynta weyn ku yeeshay oo ahayd ilbaxnimadii islaamka ee nabi maxamed uu hogaaminayay iyo ilbaxnimada reer galbeed ee hadda dunida caam yeeshay wuxuu ka warramayaa oo ka sheekeynaya ilbaxnimadii nabi maxamed uu keenay fikirka ahayd diiniga ahi sidii markaasi ay u faaftay wuxuu sheegayaa in ilbaxnimadaasi aanay ahayn ilbaxnimo ay carabi keentay laakiin ilbaxnimo muslim iyo fikir diini ah salka ku haysay oo nabi maxamed uu hogaaminayay inay ahayd taasoo markaa laba qodob markaa ay ka duuleysay ama ay sal u ahaayeen qodobka koowaad oo ah in meesha laga saaro
sheegashada marka ku casabiga ah ee qabyaliga ah ee reera iyo cida gaar ah ay sheeganayaan loona marka guuro waxa weeyaan wax wada lahaanshaha iyo wax isku ahaanshaha mabda iyo fikirka marka diintu ay waday iyo qodobka labaad oo ahaa in arrimaha ama juqraafiga ah ama deegaanada lagu kala duwan yahay ama aragtiyaha lagu kala duwan yahay ee dadka magaalo ama meel ku wada nool ay ku kala duwan yihiin inay ka guuraan oo ay u guuraan marka caalamnimadii iyo waxa weeyaan heerkii sareeyay iyo fikirkii guud ee mabaadi'dii waaweynaa ee marka caalamnimada ay diinta islaamku waday wuxuu ka warramaya oo tusaale u soo qaadaya aad u faaqidaya heshiiskii ama saxiifadii caan baxday ee la oran jiray warqadda Madiina ama saxiifatu Madiina ee Nabi Maxamed markii uu Madiina tagay la qoray taasoo saamaxaysa marka dad kala diimaha oo yuhuud aha oo muslim aha oo diimo kala haystay in ay ku wada noolaadaan magaalada Madiina waxa kaliya ee guud ay ilaashanayaan ay ahaato marka doonista qofka uu xor u yahay fikirkiisa xor u yahay cadaalad uu helo loo tartamo oo wanaaga iyo samaha lagu tartamo qof waliba marka uu ku hoos noolaado marka caalamnimada guud iyo qiyamka waaweyn ee islaamku uu waday wuxuu ka warramaya oo aad uga sheekeynaya ilbaxnimada reer galbeedka lafteeda iyo sidii ay diintu asal ugu ahayd wuxuu leeyahay oo iyadana faahfaahinaya calmaaninimada iyo fikirka laga haysto wuxuu sheegaya uu leeyahay waxa laga yaabaa dadka qaar inay qariibsadaan marka la dhaho ilbaxnimada reer galbeed ee cusubi diin bay salka ku haysay oo la dhaho ilbaxnimadan waxa keenay waxa ahayd diintii iyo dawladnimadii oo la kala siibay ama la kala saaray oo fasl diin aan dawla ay ahayd wuxuu aad uga warramaya fikirka cilmaaniga oo uu leeyahay marnaba asalkiisa iyo asaaskiisa hore ma ahayn in la kala saaro diinta iyo dawladda laakiin waxa kaliya salka uu ku hayo waxay ahayd muran dhex yaalay marka labadii kaniisadood ee Roomaanka iyo tii kale ee Protestantka ahayd wuxuu leeyahay oo la isku haystay marka fasirka la saarayo diinta dawladaha qaar ee reer Yurub waxay marka dhinaca saareen kaniisadda Roomaanka qolada kalena waxay garab ka saareen kaniisadda kale ee Protestantka si marka taa xal looga gaaro waxa la isla qaatay bay ahayd buu leeyahay in dawladnimada inta halka la dhigo qiyamka waaweyn ee diintu ay gudbinayso ee daacadnimada leh ee akhlaaqda leh ee cadaaladda leh ee valueska waaweyn ee diimuhu ay leeyihiin diinta lagu dhaqo laakiin fahamka iyo tafsiirka asaasiga ah ee hoose aan la dhexgelin nidaamka dawliga asaas buu ku leeyahay fikirka cilmaaniga ahi markii dambana wax weeyaan uu ku tisqaaday waxaana tusaale waa buu leeyahay reer galbeed may kala saarin diinta iyo dawladnimada ilaa hadda qofka ay siyaasad u diranayaan ama issharaxaya ama meel loo diranayo ilaa hadda waxa lagu qiimeeyo ee lagu doorto ee waxa weeyaan miisaanka iyo miisaan la'aantooda lagu cabirayo qofka musharaxa wax weeyaan qofkaasi run sheegnimadiisa daacadnimadiisa sidee buu qoyska ku yahay dhaqankiisa kale ee shakhsiga ah oo waxaas oo dhamaantood salka ku haya buu leeyahay diinta iyo mabda oo qofka bini aadamka uu aaminsan yahay marka u dambaysa uu ka warramaya oo aad uga faahfaahinaya islaamkii siyaasiga ahaa iyo taariikhdiisii iyo maxaa la yiraahdaa isbedeladii kala duwanaa ee dunida soo maray oo runtii mid walba uu si gaar wax weeyaan u dul istaagayo doodahan uu soo gudbinayna markaas uu cuskanayo wuxuu ka warramayaa doorka ay gabadhu ku leedahay siyaasadda iyo inay sharxi karto iyo sida uga qayb qaadan karto siyaasadda iyo inay tahay ikhtiyaar shakhsi oo qofku uu leeyahay oo diinta islaamku ay u ogashahay in ay noqoto marka qof ka qayb noqon kara nidaamka siyaasiga guud ahaan waa buug soo gudbinaya sideeba ilbaxnimooyinka loo dhisi karaa aqoonyahanku sida doorkeebu ku leeyahay iyo diimuhu doorkii ay ka ciyaari jireen ama ay ka ciyaaraan ilbaxnimooyinka hadda iyo kuwii horeba waa buug runtii laga baran karo sideeba loo kordhin karaa ama loo kobcin karaa wacyiga bulshooyinka si markaa qofkii uu u dooni karo markaa xorriye shakhsiya iyo cadaalad iyo sinaan iyo horumar shakhsiya oo aan ugu duleysnan markaa nidaamada maamulka ee kala duwan waa buug runtii xiiso badan qofkii akhriyo karana aan kula talin lahaa inuu akhriyo buugga kan ku xiga intaan ku kulmayna waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag waa adduun wadaag